بسم الله الرحمن الرحيم ومركلي iyo fariimaheeni ku socday shacbiga shacbi weynaha Soomaaliyeed salaam ayaa meel u joogaba waxaan ku bilaabayaa mahadnaq diiran oo u jeedinayo saddexda mas'uul inaga soo gabagabeeyay khilaafkii ka soo daahiray dhulka Soomaalida Somali State isbuucii u dambeeyay madaxweyne Mustafa wasiir Ahmed Shide iyo Prime Minister Abiy oo door fiican oo si horumarsan oo xadaarad leh ama ilbaxnimo leh ku soo gabagabeeyay khilaafkii ina hareeyay todobadii bari u dambeysay khilaafkaas oo ay waxa door weyn ka qaadatay sidoo u dami lahaa iyo sidoo nabadgeliyo ugu soo gabagaboobi lahaa waxaan u mahadnaqaynaa oo kale dadweynaha Soomaaliyeed falcelintii ay ka bixiyeen khilaafkaas midnimada iyo Soomaalinimada iyo geesinimada iyo baraarugsanida iyo soo jeedka iyo isku xidhnaanta iyo isku duubnida ay muujiyeen waxgaradka dadweynaha guud ahaan waxgaradka iyo hogaamiyaasha dhaqanka aqoon-yahanka iyo indheer garadka dadka Soomaalida xubnaha jawxo iyo qurba joogta jawxo iyo qurba joogta Soomaaliyeed guud ahaan doorkii fiicnaa soo jeeday noolaa ay ku fiirinayeen ay u daba socdeen arrintaas waxay muujinaysaa soo jeedid iyo baraarug iyo bisayl rajo gelinaya halgamaaga jawxo iyo dadweynaha Soomaaliyeed meel joogaba aad baan uga mahadnaqaynaa waxaan halkan doonayaa inaan ka cadeeyo inay jawxo doorkii ugu weynaa ay ka qaadatay waana ku faraxsanahay sidoo ku dhamaaday waana sidaan u hawlgalay dadkii nagala hawlgalayna aad bay ugu mahadsan yihiin waxa kale oo doonayaa inaan si weyn u xuso sidaan uga xunnahay dhibaatadii soo gaadhay dadweynaha dirdhaba oo afartii maalmood u dambeysay dhibaato nabadgeliyo iyo qalalaase nabadgelyada wax u dhimaya oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh iyo hanti burburta soo gaarsiiyay oo aad uga xunnahay waanu ka hawlgalay waan ka diriray waanu ka tiiraanyeysanahay hadda kadibna waanu ka wada hawlgalaynaa reer dirdhaba dadweynaha Soomaaliyeed dirdhaba iyo jawxo iyagoo isku duuban ayaynu dhibaatada xal u raadin doonaa haddii la yiraahdo xal nabadgelyo ah oo anfaca dadka Soomaaliyeed dirdhaba inayna dib dambe loo sasinin dhibaatana loo gaarsiinin haddana dadaal weyn baan ka geysanay ilaahay mahadi hadda way degan tahay in alla ugu wadana waan rajaynaynaa waxaan ku xujisiinayaa ugu bishaareynaa dadweynaha Soomaaliyeed inaan furayno xafiisyadii jawxo toddobaadkan gudihiisa xafiiskii Addis Ababa inuu toddobaadkan gudihiisa hawlgeli doono xafiiskii dirdhaba iyo jigjigaan ay ku xigayaan isla toddobaadkan dhammaan 11 gobol deegaanka Soomaalida ama ismaamulka Soomaalidana Somali State aan ka furi doono iyo 90ka degmooyinka 90ka kor u dhaafay iyo qabaliyada waaweyn ee mudan in laga furaba inaan ka furi doono dadka u baahan xafiiskaas danaha dadka midnimada Soomaalida horumarintooda dhaqaale nabadgelyadooda bislaynta garaadka siyaasiga u diyaar gareynta wajiyada siyaasiga ee ugu soo socda ayuu kaalin weyn ka qaadanaya xafiisyadaas ka qaadanayaan degmo waliba u baahan tahay gobol waliba u baahan yahay jawxana shacbiga Soomaaliyeed ee la joogtay u baahan tahay waxay keenaysaa mashaariic horumarina waxay ku soo xidhaysaa caalamka waxay qartaagnaanaysaa dawladda iyo mashaariicdeeda waxay ka fikiraysaa danaha dadka oo ilaalinaysaa marka degmo walba iyo qabalo walba iyo gobol walba uu baahan yahay xafiiska jawxo oo furan jawxana waxay u baahan tahay shacbi kasta oo Soomaali oo meel isugu yimid dhex taagan tahay oo ay gaarsiiso fariinteeda oo ay ku jihayso noloshooda iyo mustaqbalka ubadkooda iyo si ay u sawirto ama u shape garayso ama ay u qaabayso ama u jaangeyso mustaqbalka dadka Soomaaliyeed inuu noqdo mid ka fiican maanta sidoo yahay haddaba xafiisyada waxaan ku bishaareynaa inay hawlgalayaan iyagoo sharci sorta ay karteen ay jirin waxaa kaloo ku soo khatimayaa heerka aan gaarnay horta jawxo waa jabhad gaamurtay 34 sano dagaalameysay dhaxashay taariikhdii halganka ee dheer ilaa iyo Axmed Gurey iyo Daraawiish iyo Leego iyo tawradihii dhulkeena ka kacay oo dhan soo dhaxashay oo dhitadii Soomaalida oo dhan ku kaydsan tahay bisayl iyo way aragnimo siyaasi ah leh oo ay ku xaliso dhibaatooyinka muxuu ahaa siyaasiga oo ay ku mideen dadka Soomaaliyeed inay mideyso meel isugu keento maxaa yeelay waa hal dad
waa hal dal, waa hal dan, hal meel ku wada nool, hal ujeeddo leh. sidaa daraaddeed way u bisishahay jooxa dadka Soomaaliyeed inay midayso. dadka Soomaaliyeedna maanta wuu u bisil yahay inuu midoobo oo gacmaha isqabsado oo danihiisa difaacdo oo xaqiisa soo dhacsado oo xuquuqdiisa difaacdo oo jiritaankiisa dhaqan dhaqaale uu muujiyo geeska Afrika uu ku leeyahay iyo dhulka Somali State inay Ethiopia ka dhex muuqdaan, inay dhulkooda sayid ka noqdaan, inay dad mishiinka horumarka hogaaminaya inay noqdaan ayay jooxa iyo shacbiga u bisil yihiin. marka cid kastoo isku dayda inay kala qaybiso shacbiga Soomaaliyeed, cid kasta oo hunguriyeysa inay jooxa kala qaybiso, waxaan ballanqaad weyn ku siinaynaa inay ku hungoobayso. aad iyo aad baan dadka Soomaaliyeed ugu mahadnaqayaa, aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa kaalinta Soomaalinimada iyo geesinimada iyo isku duubnida iyo wadajirka iyo geesinimada iyo feejignaanta leh. jooxana waxaan ugu mahadnaqayaa wadaninimada iyo bisaylka iyo kartida hogaamineed ay leedahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.